السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب halkan iga daawanaysa meel walba aad joogtaan iyo si walba muuqaalkaygu oo marka idin soo gaariyay waxaan doonayaa inaan muuqaalkan aan oga warramo gobolka Gedo oo ay ka soo cusboonaadeen xaalado markaasi halis ah iyo dawladda Itoobiya oo ku amartay ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Badaxaawo ee gobolkaasi Gedo inay si degdeg ah uga baxaan magaaladaasi waana arrin runtii inagu cusub oo aan weligeena arag waxaan si gooni aan u fiirin doonaa oo muuqaalka aan diiradda ugu saari doonaa waxyaalaha gobolkan ku hareeraysan iyo sida dawladda Soomaaliya ay uga aamusan tahay xadgudubka ka imaanaya dhankaas iyo dawladda Itoobiya marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan is walba muuqaalkaygu oo marka idin soo gaariyay waa 6 Agoosto 2025 wana markii ugu horeysay maanta aynu ku kulmayna hawada waxaan mar kale idin xasuusinayaa diyaad ku cusubtiin channelka Xuseen Jamci TV ina markaa subscribe saarataan si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya halkan ku soo gudbinayno kuwa arrimaha Soomaaliya kuwa caalamka iyo arrimaha kale bulshada oo aynu mararka qaarkood aynu markaas fiirino hadii aynu bilowno gobolka Gedo mar kale dhexda ka taagan yahay xaalada colaadeed oo u dhaxeeya dhinacyo kala duwan iyo waliba isdiidooyin aan la aqoonin goorta ay soo dhamaan doonaan asbuuci la soo dhaafay waxa gacan ku haynta degmada Badaxaawo ee gobolka Gedo la wareegay ciidamada taabacsan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo markaas hogaaminayo Cabdirashiid Janan oo kamid ah siyaasiyiinta gobolka Gedo siyaasigan isku bedelay askari hogaamiya ciidamada dawladda ee gobolkaasi jooga ayaa filashadii laga qabay waxay ahayd inuu la wareegi doono gobolka Daawo la yiraahdo ama degmooyinka Daawo la isku yiraahdo ee gobolka Gedo laakiin inuu la wareego iska daay waxa soo baxaya warar xasaasi ah oo ka imaanaya dhankaas iyo dawladda Itoobiya maalintii shalay ahayd ayaa ciidamada Itoobiya waxay u yeereen odayaasha iyo waxgaradka degmada Doolow isla markaasna waxay fariin ugu fareen Cabdirashiid Janan oo markaasi hadda gacanta ku haya degmadaasi Badaxaawo sida ay sheegayaan dad siyaasiyiin ah oo dawladda ka tirsan oo isla markaasna ku sugan gudaha gobolkaasi Gedo waxay ciidanka Itoobiyaanka ah ee ku sugan Doolow ay sheegeen in si degdeg ah waliba 3 maalmood gudahooda uu Cabdirashiid Janan iyo ciidanka dawladda uu hogaaminayo oo ku sugan degmada Badaxaawo ay oga baxaan degmada Badaxaawo isla markaasna ay magaalada Faaruujiyaan laakiin waxa su'aalo imaanaya haday Faaruujin waayaan waa maxay talaabada ay Itoobiya ay markaas ay qaadi doonto waa markii ugu horeysay oo la arkayo in ciidamada Itoobiya ay go'aan noocaas ah ay soo saareen waxaan la oran karayaa waa markii ugu horeysay oo ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi Gedo ay qayb ka noqonayaan maxaa la yiraahdaa isqabsi u dhaxeeya dhinacyo reer Gedo ah go'aan noocan inay soo saaraan naftirkeeda waa markii ugu horeysay haddaba hadalka ka soo yeeray dawladda Itoobiya waa maxay fasiraadda uu bixinayo iyo waxa aynu ka fahmi karno hadalkan macnihiisu waxa weeye ciidan ka diiwaan gashan dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ku sugan degmada Badaxaawo ee dalka Soomaaliya ayaa ciidamada Itoobiyaan ah oo dalka Soomaaliya marti ku ah waxay ku amrayaan in ciidamadii dawladda Soomaaliya ay ka baxaan degmada Badaxaawo magaaladaasi dhacda xuduudda saddexda dal ee Soomaaliya Itoobiya iyo Kenya marka waa faragelin iyo duulaan lagu soo qaaday madax banaanida Soomaaliya waxaana la fiirinayaa maxay dawladda Soomaaliya ay uga jawaabi doontaa dhacdadan cusub hadii ciidanku ay ka bixi waayaan maxay Itoobiyaanku ay sameyn doonaan miyay weerar doonaan haday weeraraan maxaa ka iman doona asbuuci la soo dhaafay degmada Doolow ee gobolkaasi Gedo ayaa sidoo kale hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka xarun ciidan oo ay ku lahaayeen ay ciidamada Itoobiyaanku ay weerareen isla markaasna hubkii yaalay oo ay dawladdu lahayd qaarna waa gubeen qaarna waa qaateen saraakiishiina qaar ay xirxiraan iyo qaar ay dalkoonta ka dhex masaafuriyaan ay xamar u masaafuriyaan ay ka dhigeen mana jirin tilaabo ay dawladda Soomaaliya ee arrintaasi ay ka qaaday marka midaan dambe waxay dawladda Soomaaliya ay ka qaadi doontaa wali waa su'aal taagan waxa sidoo kale isha lagu hayaa ilaa iyo imisa ayuu Xasan Sheekh Maxamuud ka aamusunaan karaya fargelinta Itoobiya ay ka wada gobolkan iyo waliba sida ay uga hor imaadsan tahay mashruuca uu Xasan Sheekh Maxamuud uu gobolkan Gedo uu ka wado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asbuuci la soo dhaafay tagay magaalada Addis Ababa waxaana la sheegay inuu kala hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya arrimo la xiriira gobolkan Gedo laakiin waxa la sheegayaa xogaha madaxa banaan oo aanan cadeyn karinin ay sheegayaan in Abiy Ahmed uu diiday gabi ahaanba waxyaalihii uu Xasan ka doonayay ee la xiriiray in gobolkan gacanta loo galiyo dawladda dhexe ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu imaanayay gobolkan asagoo ay gacanta dawladda ku jirto ayuu Axmed Madoobe ku wareejiyay maantana wuxuu Xasan u dagaalamaya oo dhibaato u maraya waa gobolkii uu Axmed Madoobe ku wareejiyay
sidii uu markaasi dib ugu soo celin lahaa gacantiisa waa rati macsar shiide ayaa la oran karaya siyaasadda xasan sheekh maxamuud sida ay isaga daba meereysanayso waan loo aqoon halkay u socoto haddaba maxay qorshaha dawladda Soomaaliya ay gobolkan ka leedahay iyo waxyaalaha hadda soo cusboonaaday ayaynu bal fiirinaynaa horay ayaynu marar kala duwan u tabinay arintaasi laakiin haddii aan idin xasuusiyo waxay dawladda Soomaaliya ay gobolkan u soo dirtay Cabdishiid Janan oo ah sargaal hadda hogaaminaya ciidamada dawladda ay ku sugan gobolkaasi Gado waxaana dawladda Soomaaliya ay doonaysaa inay Gado ka samayso maamul cusub oo loogu yeeray Jubbaland cusub taasoo la doonayo in lagu dagaalamo Axmed Madoobe marka qorshihii ay dawladda Soomaaliya gobolkan ka lahayd ayaa waxaa muuqata in Itoobiyaanku ay ka hor imaadsan yihiin ayagoo waliba faragelin ku sameynaya madax banaanida Soomaaliya iyo waliba ciidamadii dawladda Soomaaliya ee ku sugnaa gudaha gobolkaasi Gado Boononigu wuxuu ag yaala Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisu waa maxay talaabada Itoobiya ka qaadi doonaan wali su'aalaha soo laabanaya waxaynu ognahay in bil ka hor Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku tagay dalkaasi Masar oo halkaasi Cabdilfataax al-Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ka soo jeediyeen hadal Itoobiya duulaan ku ah isla bishii ka dambeysana Xasan uu u safray dalkaasi Itoobiya asagoo aad moodid in wixii uu sameeyay ilowsan marka soo laabashadiisii uu ka soo laabtay Addis Ababa ayaynu arkaynaa marka in Gado ay culays soo saartay Itoobiya oo markaan ay faragelin xoog leh ay ka wado oo ay weerartay doow haddana ay balad xaawo ay markaasi leedahay ciidamadu ka baxan waxa kale oo ay leeyihiin dadka khibrada ah oo arrimahan aynu wax ka weydiinay haddii Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiyaanku ay ka cayrsadaan gobolka Gado waxa xaqiiqad noqon doonta in sidoo kale gacantiisa laga bixin doono maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay ciidamada Itoobiyaanka hadda ay si xoog ah u joogaan waliba qaasatan magaalada Baydhabo waxa markaa muuqata in Xasan Sheekh Maxamuud oo wali maandheed haysta dalkana madaxweyne ka ah in dalkii Soomaaliya ay Itoobiya si xoog ah ay ku maamulanayso isla markaasna aysan jirinin wax dawladda Soomaaliya ka soo bixi karaya oo hadal ah iyo waxay uga jawaabto talaabooyinkan xataa waraaq inay soo saarto way awood la dawladda Soomaaliya gobolkan ku yaala meesha istiraatiijiga ah ee Gado ayaa waxa ku dagaalamaya ugu yaraan ilaa ay 5 kooxood oo kala duwan oo dadka deegaanku ay markaasi 6 ku noqonayaan markii la fiiriyo dadka saameynta kale gobolkan marka ugu horeysa waxa jooga ciidamo Itoobiyaan ah oo ilaa ay 5 xarumood oo kala duwan ka jooga gobolkan waxa sidoo kale xuduud leh Kenya oo ayaguna galangal xoog leh ku leh maamulka magaalada Kismaayo ka jira waxa sidoo kale galangal ku leh dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa sidoo kale galangal ku leh ururka Al-Shabaab waxa sidoo kale galangal ku leh gobolkan Jubbaland iyo waliba qabiilka deegaanka markaasi degan oo ayaguna markaasi ah stakeholder goonidooda markaasi u tuban marka waa Itoobiya iyo Kenya iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Axmed Madoobe iyo Al-Shabaab iyo qabiilkii deegaanka degan waa 6 kooxood oo kala duwan ayaa waxa isku hayaan cid gobolkan maamulaysa wana sababta gobolkan arintiisu ay mar walba ay u soo laabato waxaan la oran karayaa waa gobol ka xasarad badan ka saameyn badan ka buuq badan gobolada kale ee dalka Soomaaliya sanad walbana marka la gaaray xilliga doorashada waxa soo laabta qadiyada la xiriirta gobolka Gado laakiin sanadkan waxa muuqata in aragtidii hore aragti ka yara qalabsan inay ka soo cusbanaatay oo Itoobiyaanku markaan ay leeyihiin gobolka anaga xoog kuma